الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله وهبين كله إيا وصية إيا دردارا كمذا دردارنا ذي نبي صلوات الله والسلام عليه إلههم هذا سكاله سبحانه وتعالى فرصدني نسيي دردارا كنا عاوة وحديث جرموز الهجيمي الفريعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قلت يا رسول الله أوصني قال أوصيك ألا تكون لعانا جرموز ابن أوس بالير هذا الهجيمي الفريعي لبذب والله النسبية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحورنا رسولك عليه الصلاة والسلام أيام كويري قال قلت يا رسول الله أوصني قال أوصيك ألا تكون لعانا حديثكم هو صحيح ويان رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في تاريخه وصححه الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه في صحيح جامع الصغير وسلسلة الأحاديث الصحيحة سيدوك الحديث وحاورين إياه ابن سعد في الطبقات وغير ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام نكلا هذا صحابي جرموز والريب بصرويان حديثه في البصريين بالير هذا ترجمة يسوع حافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه وحكت المامية كتاب كيسا الإصابة في تمييز الصحابة ابن سعد في الطبقات أي كت المامية بخاري في تاريخ ذيسا التاريخ الكبير كأي كسو قادنا حديث كانوا نكوريي طريق سكورين إياه sidoo kale waxaa tarjamadiisa ka warramayay asxaab التراجم oo dhan ibn cabd albar وkitaabkiisa الاستيعاب ayuu kaga warramayay وهكذا ninka la yiraahdo ibn الأثير في أسد الغابة ayuu kaga warramayay tarjamadiisa kulligoodna xadiidkan way tilmaameen saxaabigan isaga ayaa wuxuu leeyahay rasuulkan u yimid salawaatu ullahi wasalaamu calayh haddaan u imidna waxaan weydiisanayay dardaaran wasiya ama dardaaran ayaan weydiisanayay waxaa loo dardaarmaya waa saxaabiga jurmuus la yiraahdo radi allahu tacaala canhu wa ardaah nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu weydiistay kadib waxaana loo dardaarmay hal shay shayga isaga ahna inagoo dhan baa la inoo dardaarmay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam noo dardaarmaya oo waa maxay markaan ku iri buu yidhi qultu yaa rasuula allah awsinii rasuulka allow ii dardaaran rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi uusiika anlaa takuuna lacaana waxaan kuu dardaarmayaa in aadan noqonin lacaan lafdi kale ibn sacd dabaqaadkiisa wuxuu oranaya anhaaka an takuuna lacaana waxaan kuu diidayaa in aad noqotid mid lacnad badan taasaan kuu diidayaa markaasa waxaa la yidhaahdaa famaa lacana bacda dalik waktigaa wixii ka dambeeyey jurmuus weligii muunan lacnadin bini aadan iyo xayawaan midnaba maxaa yeele lacnadu macnaheedu waxa weeyaan tard iyo bucdi can raxmat illaahi jala wacala qofka oo laga fogeeyo laga saaro ilaahay naxariistiisa oo dhan waynu ognahay oo ibliis ilaahay baa lacnaday subxaanaه wa tacaala qofkan la lacnadayana macnaheedu waxa weeyaan waa dariiqi ibliis iyo min ahli ibliis ayuu ka mid yahay min asxaabi ibliis weeyaan waa xisbi shayطaan weeyaan macnaheedu taasay ka dhigan tahay waxay la mid tahay waa lacnu lmu'mini ka qatli nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam sidii adigu oo dilay oo kale buu nebiga ka soo qaaday salawaatu اllahi wasalaamu caleyh xadiidkii صaxiixeynka ku sugnaa oo wuxuu oranaya walacnu lmu'mini ka qatlih qofka mu'minka oo la lacnadaa waa sidigoo adagan waxba u reebanin oo dilay oo kale weeyaan macnuhu waxa weeyaan qofka mu'minka ah haddii la dilo adduunkiisii baad seejisay haddaad lacnadana adduun iyo aakhiraba waa seejisay maxaa yeeley ilahay naxariistiisaad ka fogeysay subxaana wa tacaala bal in la dilaa u dhaantay in la lacnado sidaa darteeda lacnadu wax sahlan maaha aad iyo aad bay u xun tahay nebigana waa noo diiday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh intaynu ka fogaan karno waa inaynu ka fogaanno in allaaliyo inta carabkeenna aynu ka ilaalin karno waa inaan ka ilaalinno maxaa yeelay laa yakuunu shahiidan walaa shaafican yowma alqiyaama qofka lacnada badan ma noqonayo mid markhaati ah maalinta qiyaamaha mid shahiid ahna noqon maayo oo
u markhaati kaca shafiic noqon maayo oo mid erge noqda ilaahay xaggiisa subxaana wa tacaala. waxaanu ognahay ambiyada ilaahay waa erge tegayaan. nabiyullaahi moxamed baa uga horeeya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadoo maxsharka khalqigu ay taagan yihiin ayaa shafaacadii cudmaaga ahayd ee weyneed ilaahay siiyey subxaana wa tacaala. qul lilaahi ashafaacatu jamiica, ilaahay baa iska leh. kadibna nebigiisu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala muxamed ah. waa fadli iyo karama ilaahay subxaana wa tacaala uu ku karimay nebigiisa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. waa takarum min allahi jala wacala. hadday sidaa tahay marka oo ilaahay uu siiyey rasuulkiisa muxameda salawaatu ullahi wasalaamu caleyh, nebigu waa shafaaco qaadi doonaa. wuxuu u shafaaco qaadayaa inta khalqiga ahee maxsharka joogta. maxaa yeele nebigaa noo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh, dadku marka ay aada u wareeraan in qoraxdii baa lasoo dhoweynayaa. yowma yajcalu lwildaana shiiba, carruurtii yaryareed baa ciroola noqonaysa, dhibka iyo rafaadka taagan ciraa ka soo baxaysa. in qofku markuu walwalo oo walbahaarku ka bato oo rafaadku ka bato, isagoo yar buu ciroobaa. qofkii oo yaro waxaad arkaysaa ciradii ay ka soo daadatay bisabab walwalka iyo walbahaarka maalin walba haysta weeyaan. maxaad u malaynaysaa marka meesha ilaahay ka cabirayo subxaanahu wa tacaala in carruurtii yaryaray ay durbadiiba ciroolo noqonayaan oo ciro ka soo bixi doonto? macnuhu waa xaalad aan sahlanayn weeyaan. alle wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala watadacu kulli daati xamlin xamlaha, midii uur lahayd oo dhan uurkeedii way soo ridaysaa xanuunka iyo walwalka maalintaa taagan. watara annaasa sukaara wama hum bisukaara, dadkana waxaad moodaa sidii kuwa sakraan ahoo wax soo cabay maandooriye ah, laakiin maynan soo cabin. maxaa dhacay? cadaabka ilaahay baa shadiid ah. iyadoo sidaa dadku markay isu dhex wareersan yihiin oo qofku ka cararaya aabihii hooyadii dhalay, oo uu ka cararaya carruurtii uu dhalay, oo qofkii dumarka ahay ninkeedii ay ka cararayso, oo ninku xaaskiisii ka cararayo, oo qofku walaalkii ka cararayo, oo ninkii ragga ah walaashii ka cararayo, ehel iyo qaraabe iyo saaxiibo kulli saa loo kala cararayo, walwal iyo walbahaar maalintaasi taagan yahay. ummaddu waxay u tegayaan buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam aabbahoodii aadam ahaa, iyagoo ku odhanaya ina allaha khalaqaka biyadih wanafakaka fiihi min ruuxih waasjada laka almalaa'ika. ilaahay subxaana wa tacaala gacantiisuu kugu abuuray, ruuxdiisiibuu kugu afuufay, malaa'igtiibuu kuu sujuudsiiyey. inay qur-aanka intaba la inoogu sheegeen ee maanta noo ergan noqo bay leeyihiin. ilaahay noo shafaac qaad, meeshan aan taagannahay si meelna aan tahay ilaahay ina kala geeya. oo qofkii janno geli lahaana ha galo, kii naar geli lahaana ha galo. markaasuu nabiyullaahi aadam wuxuu odhanayaa ilaahay maanta waa caraysan yahay caro uusan weligiina caroonin, hadda kadibna caroon doonin. anigu booskaas melihi, maxaa yeelay geedkii la yidhaaha cunin baan cunay. idhabuu ilaa nuux, nuux aada buu odhanayaa. nabiyullaahi nuux bay u imanayaan, sidii oo kaleu isna cudur daaranayaa. idhabuu ilaa ibraahim, ibraahim bay u tegayaan, waa cudur daaranayaa. sidii oo kale wuxuu odhanayaa muuse aada, muusey u imanayaan, sidii oo kaleu ka cudur daaran doonaa. idhabuu ilaa ciisa, nabiyullaahi ciise waa ka cudur daaranayaa. idhabuu wuxuu leeya ilaa muxamedin sala allahu calayhi waaalihi wasalam, nebigu calayhi salaatu wasalaam waa soo kacaya, carshiga hoostiisu ku sujuudi doonaa, ilaahay buu ammaani doonaa subxaana wa tacaala. ammaan uu yihi maanta oon dunida taagnahay aanan garanayn, laakiin ilaahay ii furi doono subxaana wa tacaala. kadib ilaahay subxaana wa tacaala waatan waxaa la odhanayaa ishfac tushfac, irfac ra'sak washfac tushfac. moxamed oo madaxaaga kor u qaad horta sujuudda, kadibna ergadaada waa la aqbalayaaye erga noqo baa la leeyahay. nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa ugu horeeyey uu ergada u qaadayo rabbi ummatii ummatii weeyaan. kadibna wuxuu xadiid kale noo sheegay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh haddana shafaaco qaadi doono oo dadkii naarta galay kaga daba tegi doono, ilaahay subxaana wa tacaala weydiisan doono inay ka soo saaro. ambiyada ilaahay baa shafaaco qaadaya, addoommada ilaahay mu'miniinta baa shafaaco qaadaya. laakiin waxaan shafaaco qaadaynin ma garanaysaa maalintaa? qofka lacnada badan adduunka. sidaa darteeda qofka inuu lacnada iska ilaaliyo weeyaan. saxaabigan jurmuus la yiraahdo radi allahu tacaala canhu ardaa alhujaymi maa lacana xataa maat, yani lam yalcan axad xataa maata radi allahu tacaala canhu ardaa bilbasra. muunan lacnadin weligii qofna ilaa uu basre kaga dhintay radi allahu tacaala canhu ardaa. maxaa yeelay dardaaranku nebiga weydiistaa wuxuu ahaa ii dardaaran, waxaa lagu yihi anlaa takuuna lacaanan. sidaa darteeda waa inaynu carabkeenna ka ilaalino lacnada. ka waran haddaba haddaynu aynu lacnada ku ridano carruurtii ina dhashay, carruurtii aynu dhalnay, ama aabihii hooyadii ina dhalay. nebigu calayhi salaatu wasalaam waatuu tilmaamayey qofku waxa axmaqnimo ugu filan inuu aabihii hooyadii caayo. qofka waxaa ugu filan caasinimo inuu aabihii hooyadii caasiyo. oo see u caasinaya haddii la yidhi oo u caayaya, rasuulku wuxuu odhanayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh yasubu aba arajuli
fayusabu abaah wayasubu uma arajuli fayusabu ummah qof buu aabihii iyo hooyadii caayaya markaas aabihii iyo hooyadii isna la caayaya. sidoo kale qof baad aabihii hooyadii lacnadaysaa, aabbaha iyo hooyadaabaa la lacnadaya. marka caasi baad tahay, sababtoo tahay yaa aabbaha iyo hooyada u soo jiiday lacnada ama cayda u soo jiiday? adiga weeyaan. haddaadan qofkaa ku bilaabi lahayn miyuu kula soo doonan lahaa isagu? maya. annagu waxaanu leenahay laakiin isirtaadiiyo awowgaagii iyo lacnad allah ku rido. macnuhu waa maxay? qofkaa keliya maadan lacnadine aabbayaalkii iyo awoyaashiisii uu ka soo farcamay oo dhan iyo uskankiisii baad lacnaday, faraciisii oo dhan baad lacnaday, asalka uu ka soo jeeday. sidaa darteeda wax wanaagsan maaha, shareecadu waa noo diiday. qofka noocaas ahna shafiicna noqon maayo oo ma shafaaco qaadayo, erge qaadi maayo, shaahidna noqon maayo. ummaddan waa markhaati weeyaan. wayakuuna arasuulu calaykum shahiida watakunuu shuhada'a cala annaas. ummadaha kale oo dhan baa markhaati ku noqonayna siduu ilahay noo sheegay subxaana wa tacaala fi lqur'aani alkariim, nebigana noo tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. laakiin qofka lacnada badan noqon maayo, shafiicna noqon maayo, oo cid aad u erge qaadaysa ma leh, cid aad erge u noqon doonto ma leh haddaadba jannada gashaba. sidoo kale noqon maysid qof shaahid oo markhaati noqdana noqon maysid. sidaa darteeda waa inaynu carabka ka ilaalino. ta kale lacnada qofka aad ku ridayso intaynan aadin samaday aadaysaa, albaabada samadoo dhan baa laga soo xiranayaa, dhulkay soo aadaysaa, albaabadii dhulkaa laga xiranayaa. qofkii aad ku tuurtay lacnada ayay aadaysaa, hadduunan ehel u ahayn way isa soo majiiraysaa. iyo xaggey aadaysaa? cer waa loo diiday oo dhul waa loo diiday oo qofkiina waa ehel uma aha. maxaa yeelay ehel uma ahayn, adigay kugu soo laabanaysaa yiri lacnada. sidaa darteeda adigaa malcuuna, marka adaa islacnaday weeyaan macnaheedu. in aynu is-ilaalino weeyaan cidda aynu lacnadayno. ma banaana markaa in aynu wax lacnadno. ibliis xitaa haddii aad lacnado ajar ma ka helaysaa? lacnat allah calaa ibliis caawo dhan haddaynu ku hayno ajar kama helayno. sidaa darteeda carabkaaga inaad ka ilaashato weeyaan. lacnadu waxba ma faa'iidayso, waxna ilaahay agtiis subxaana wa tacaala ajar lagaaga qori maayo. ibliis iyo shayaatiin oo dhan haddaad lacnadayso ajar heli maysid. qof muslima lacnadiisana adigaa ku lacnadan, waxayna la mid tahay sidii adiga oo dilay, siduu xadiidkaa kale fi saxiixayn nabiga noogu sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. walacnu lmu'mini ka qatlihi, nabigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. thaabit ibni daxaaq uu warinayey radia allahu tacaala canhu ardaa. sidaa darteeda inaynu iska ilaalino. xadiidku waa xadiid cadiim ah. nebigu wuxuuna oranayaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh, anlaa takuuna lacaanan. qof walbaa lala hadlayaa, anaa layla hadlayaa, adigaa lagula hadlayaa, oo nebigu leeyahay anlaa takuuna lacaanan. waxaa la mid ah sabiga iyo cayda. carabkaaga ka ilaali, hana barin. maxaa yeelay sibaabu lmuslimi fusuuq. qofka muslimka oo lacaayaa waa faasiqnimo weeye, faasiqnimo iyo taacadii ilaahay oo laga baxay weeyaan. sidaa darteeda carabkaaga ha barin. waxa wanaagsan bar carabkaaga, inaad u ducayso bar. intaad caayi lahaydood habaari lahaydood lacnadi lahayd ka waran haddaad u ducayso, maxaa dhacaya? ajarna waad ka helaysaa. qofkaas aad habaari lahaydeed u ducaysay waxaa dhici karta ducadaada inuu ilaahay u aqbalo. qofkaa walaalkaana waxbaa tartay oo ducadaadii baa ilaahay u aqbalay subxaana wa tacaala. dhanka kale adiguna malag baa agtaada ah. nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam, markuu qofka walaalkii u duceeyo malag baa ku oranaya walaka bimil, intaasoo kale adigana allah ku siiyo. sidaa darteedna dardaarankeennan waa dardaaran cadiim ah. nebigu calayhi salaatu wassalaam uu ina oranaya uusika anlaa takuuna lacaana. qof walba ayuu nebigu ku oranaya, anuu igu leeyahay adigu kugu leeyahay, uusika waxaan kuu dardaarmaya anlaa takuuna lacaanan, in aadan noqonin qof lacnad badan. iska ilaali. inaynu lacnadno gaaladii dhimatay waa bannaan tahay. alaa lacnat ullahi cala alظaalimiin. waynu oran karaynaa, qur'aankaaba yiri ba ilahay ku sheegay subxaana wa tacaala. lacnada ilaahay waxay dushooda tahay dhaalimiinta. laakiin ma laga yaaba adiga inaad dhaalim tahay? ha, waa dulmisaa. ama ilaahay baa dulmisaa, ama naftaadaa dulmisaa, ama addoommada ilaahay baa dulmisaa. maxaa yeele haddaad ilaahay wuxuu ku faray aad la iman weydo, ilaahay subxaana wa tacaala dulmi baad oola timid. waman adlamu miman iftara cala allahi kadiban. yaa ka dulmi badan qof ilahay ku been abuurtay. waxaa laga yaabaa qofka bini aadanka inaad dulmiso, waxaa dhici karta naftaada inaad dulmiso. maxaa yeele xaq waxay u lahayd ee cibaadada ilaahay ah, ee taacada ilaahay ah, haddii aad ka gaabiso waa dulmisay. sidaa darteeda waxay tahay inaan nafteenna aanan ka gaabinin taacada ilaahay subxaana wa tacaala. mar walbana aan isu dardaaranno wanaaga. nebiguna calayhi salaatu wasalaam kelimadaa kooban laakiin macno weyn qaadanaysa ee kitaab dhan lagu fasiri karayo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo dardaarmayaa. taasina waxay ina tusinaysaa ilaahay inuu siiyey rasuulkiisa muxameda salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wax aanun ambiyada kale uunan siinin oo ah wa uctiitu jawaamica alkelim. inuu ilaahay siiyey jawaamic alkelim oo dhan.
xadiidka yar ayaa inoo tilmaamaya nebigu ina leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qof walbo inaga mida uusika anlaa takuuna lacaanan waxaan kuu dardaarmaya idanaadan noqonin lacaan mid lacnad badan. ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu ka baryaynaa jala wacalaa carabkeena inuu ka ilaaliyo cayda, carabkeena inuu ka ilaaliyo lacnada, qalbigeena inuu ka ilaaliyo xiqdiga, qalbigeena inuu ka ilaaliyo xumaanta ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu nagu arsuqo xusnu lkhuluq. wasiyada iyo dardaarankaana kuwa fuliyo inuu naga dhigo. in sha allah waa habeen kale iyo dardaaran ka mida dardaaranadii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. inta aynu mar kale ku kulmayna in sha allah ilahay waxaanu ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu inaga dhigo aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsana. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.